birweheyaan oo islaamku badbaadiya waanu baranaye rabow baaska naga xija bisinka alla bisinka bisinka alla bisinka haddii aan kaftamo rag mid baan leeyahay ragna mid baan leeyahay inaan kulankii halkaa kasii wadno oon sii ballaadhino heer ay dhalinyartu dhammaantii meel ay joogaanba ay isku baran hayaan oo ay isla jaanqaadayaan marka saamiyaad la qumanayn sharaab iska wada cabaysa dhammaantiin meel kastoo joogto inaad ka dhex muuqdo tolka horta aad buu qurux badan tahay badaluu waxaan leenahay xaqiiga soo ridato curadkiina waxaan leenahay warbal markii hore waad hurudeeyay imika bustaa iska qaaday bas jaf oo waxa ay raadso ummad kasta haddii ayna iyadu isbedelin cid bili aadan u dhalanaysa ama u imanaysa oo bedelaysa ma jirto ragga ama qoraxa ka yimid ama shabeelle ka yimid ama waxa weeyaan wardheer ka yimid ama liiba ka yimid ama afdheer ka yimid mid baan leeyahay annaka curadkiya waxaan leenahay annaka hooyo hilbaan la garab taagana tolkayga kale ee waqooyina mid baan leeyahay cali madaluug waar madaluug haddii aanan inagu isku keenin midnimadiisana aanan ka shaqaynin ma jirto Soomaali kale oo inoo imanaysa oo midnimadeena ka shaqaynaysa horta waxaan salaamay dhamaantiin waxaan inagu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib haddii aan kaftamo tolkayow rag mid baan leeyahay ragna mid baan leeyahay rag mid baan leeyahayo ragga ama qoraxa ka yimid ama shabeelle ka yimid ama waxa weeyaan wardheer ka yimid ama liiba ka yimid ama afdheer ka yimid mid baan leeyahay tolkayow magaca waad hayseen laakiin waad naga baqaysheen inaadna soo gaarsiisaan taa inigaan inilaah tolkayga kale ee waqooyina mid baan leeyahay cali madaluug ama awdal ka yimaadaan ama harawaha ka yimaadaan ama jigjigaha ka yimaadaan ama dambalaha ka yimaadaan ama wajaalaha ka yimaadaan ama harawaha ka yimaadaan ama awbaraba ka yimaadaan waxaan leeyahay tolkayow gobi geed ma goyso haday goysana gunta kuma goyso magacii awowgeen inaan ka tagno oo naftirtiintiisa marin weyno waxa weeyaan arintaas iyo gobnimada aan sheeganaynay isma qabanayso ee aan isqabadsiino ragana taasaan leeyahay waxaan insha Allah halkan ka salaamayaa oo uga mahad celinayaa cid kasta oo ka shaqeysa midnimada reerkan madaluug oo kamida beelaha Soomaaliyeed waxaan halkan waliba salaanan hawada uga marinayaa qaybta joogta Kenya dadka ugu firfircoon gaar ahaan nasra ay ugu horeyso Soomaaliya nasra cali dheere waa Kenya weey oo reer Muqdisho ahaan jirtay waxa weeye Soomaaliya Sheekh Bishaar oo waliba masalan madaluuga oo burca jooga ahna sheekh ahna aad dadka ugu firfircoon Australia ilaa iyo meel walba la daasan yahay sheekhi caanka ahaa ninkii uu dhalay ee Cabdi Wahaab Sheekh Cismaan Qalinle Sheekh Cismaan Qalinle maqashaan Soomaa Sheekh Cismaan Qalinle oo isaguna ku jira dadka ugu firfircoon ee qarniyaal ka shaqeynayay sidii loo midayn lahaa bahdii madaluug waxaan kale oo salaamayaa gudoomiyaha bahda madaluuga isku keenida gudoomiye Cabdikariin ayaan isna laga salaamayaa oo bahda qurbaha inoo joogta kamida kulankani maanta inuu dhaco maal iyo muruq iyo maskax baa ku baxday ujeedo kalena ma aha xukuumadda aad baan iyadana u bogaadinayaa maadaama amnigeena sugayso maanta waxa weeye nabadgelyadan la haysto waxa ka shaqeeya waa xukuumadda way ku amaanan tahay nabadgelyada way ku amaanan tahay kaalinta ay kaga jirto bulshada dhexdeeda ee wax qabad leh way ku amaanan tahay gaar ahaan xisbiga barwaaqo iyo uu hogaamiyo mudane Mustafa Maxamed Umar heer deegaan heer federaalna mudane Abiy Ahmed halka hadan kaga imaado kaftankaygina halka ku soo xidho waxaan inagula dardaarmayaa jamca wada jir ayay wax ku gooyaan jamco wada jir ayay wax ku gooyaan
ummadiba sideeda isma bedesho haddii ayna iyadu isbedelin oo ina gudaha iska bedelin ugxaanta shayga la yidhaha ugxaantu haddii maanta marka ay jirto haddii ul aad soo qaadatood ku dhufato way dhimataa way jabtay wayna dhimatay laakiin ugxaantaasi haddii ay iyadu isjabiso digaagad baa ka dhalataa labadii jeerna ugxaantii way jabtay mar way jabtay oo dhimashay qaadatay marna way jabtay oo nolol bay qaadatay waxay ka turjumaysaa ummad kasta haddii ayna iyadu isbedelin cid bini aadana u dhalanaysa ama u imanaysa oo bedelaysa ma jirto waar madaluug haddii aanan inagu isku keenin midnimadiisana aanan ka shaqaynin ma jirto Soomaali kale oo inoo imanaysa oo midnimadeena ka shaqaynaysa waxaan inilaa walaalahayow midnimadeena ka shaqayno wada jirkeena ka shaqayno isbaranaye yaanan isiloobin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waan idin salaamayaa dhammaan dhalinyarta beesha Madalugdir galabta iskugu timaaday guriga ugaaska dhammaantiin waa salaamantiin waxaan ku salaamayaa salaanta sharciga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulankeena maanta waa kulan isbarasho oo dhalinyarta reerku ay isku baranayaan meel kasta ay joogaanba geeska Afrika meel kasta ay kaga sugan yihiinba waa kulan ay isku baranayaan insha Allah waxaan rajaynayaa kulankan maadaama uu maanta uu yahay kulankii koobaad ee dhalinyarta beesha Madaluug ay isku timaado inuu uu kulankan horseedo shirweyne guud oo iskugu yimaadaan beesha Madaluug waxaan sidoo kale idin kula dardaarmayaa meeshan galabta waan ku dhannahay haddaynu nahay Cali Madaluug haddaynu nahay Isaaq Madaluug haddaynu nahay Axmed Madaluug saddexdii jifa galabta meeshan way ku dhannahay waxba inaga maqnaa nin kasta meesha wuu joogaa waxaan looga baahan yahay maadaama is aragnay inaan kulankii halka ka sii wadno oon sii ballaarino heer ay dhalinyartu dhammaanteen meel ay joogaanba ay isku baran hayaan oo ay isla janqaadayaan marka saamiyada la qumaneen sharaab isku cabaysa dhamaantiin aad iyo aad baan islaam dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh arxiin mar labaadana ku soo noqday madasha waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa gudoomiyaha Cabdulqaadir ee ahna gudoomiyaha gobolka Harewo dhalinyarta waa gudoomiye sharaf iyo maamuus ku suntan oo aad u soo wada shaqeynay madala badan baan igu xasimo moogtahay taydii bisugayn ka soo iga dhunta markay madala jirto gudoomiye asagaba wax xasimeyn la xasimo moogta waa ka dhaca marka dhalinyarta baada reer Madaluug aad baan soo dhaweynaa anu hadda laga bilaabo Madaluug baabanahay waayo maalmahan oo dhan baan anigu assignment baa la diray moogta Cabdiqaadir baan ay diray waana ka soo shaqeeyay maanta kaas soo istaagay marka waxay ka dhigan tahay Madaluug waa loo wada dhan yahay anakoo curadkiina anoo maanta afka curadka ku hadlaya waxaan leeyahay soo dhawaada aad baan u faraxsanahay kulli Soomaalidu hore loo yiri gacmoodu jirba wax ku gooyaan waxaan mar walba iyo mar saddexaad ba bogaadinayaa midnimada tolka in meel kasto la joogo midnimada laga shaqeeyo meel kasto la joogo dhiiranaanta la muujiyo meel kasto joogto inaad ka dhex muuqato tolka horta aad buu qurux baan tahay madal walba oo joogto inaad adoo ku suntan magacaaga oo Madaluug wata inaad ka dhex muuqano hadeedna go'aan baan ku gaarnay qof kasta oo dhalinyarta Madaluuga beesha caalamka daafaha dunida meel kasto joogan waxa uu baaqayaa war Madaluug ayaad isqarinde hadii madal walba xataa kursi marka la qaadanayo Soomaaliya la joogan Madaluug iyadoo farta taagaysan aragno Soomaa Madaluug waxaan leenahay xaqiiga soo ridato curadkiina waxaan leenahay war bal marka hore waad rudeeyay imika bustaas ka qaaday bas jaf oo waxa raadso maalintii asiimantii lagu diray walaalka maxaan ku dhahay soo qaxayso maalinta waad ka dhacday mar sharaaba lagu siiyaan maleen laakiin hadda laga bilaabo annaka curadkiina waxaan leenahay annaka hooyo hilbaan la garab taagana maxaa dhacay markaana soo gaabin dhalinyaro fara badan baa joogta sharaf iyo maqaamba
dee gobolka qoraxayna dhowr jeer baan imaadaa marka xaggaa la eegana meelo badan baa qoraxay ka galaay waa taaganahay madalugu qoraxayna insha allah bisi waxaa laga bilaabay nin baraka male dirweheyaan oo islaamku badbaadiya waanu baranaye rabow baaska naga xija bisinka alla bisinka alla bisinka anigu beelaha direed baan ku beeganahay nadirtu way badantaho way ballaaran tahay weliba madaluugtayo ararkii cuslaa siyaasada Soomaaliya nimankii sandanad lahaa oo beerta way bahdaydu tahay professor weeyayo dulka laga cabsado boqortooyada ayayna bahdaydu tahay dirir markay noqotana waa dabiyo rasaas ma balbalaan been ma sheega rakama baqaan bambada ololaisayo mina kama baqaan isfaanin maayeeyanu madaluugi dhalay